iyadoo dagaalka bariga dhexe galay maalintii shanaad waxa muuqata in Mareykanku bedelid iyo dib uga fiirsi xoogan ku sameynayo xeeladiisa dagaalka taasoo Israel laf ahaanteedu door sare ku leedahay kadib khasaaraha nafeed dhaqaale iyo hantiyada ee Mareykanka iyo caalamkaba ka soo gaaray gulufkan shan maalmood jirsaday waxa wararka soo baxaya tibaaxayaan in Mareykanku sameynayo dib u xeeladaysi uu ku yareynayo khasaaraha dagaalka sida tooska ah dalkan uga soo gaaraya waxaana marka diiraddu saaran tahay in la abuuro kooxo gobolka laf ahaantiisa ah oo colaado maxalli ah ku fura Iiraan furimahaas cusub oo Washington u aragto inay bedel u noqon karaan dagaalka ay haatan ducahani burburka badan ka dhaxleen gobolka oo dhan wada saameeyay dhaqaalaha dunida dhilada daran gaarsiiyay ee loo arko hadii uu sii socdo inuu isu bedeli karo masiibo dhab u dhaawici karta suuqyada caalamiga ah oo dhan Trump iyo xukuumaddiisa waxa sidoo kale la warinayaa inay talaabadan ku khasbayso duruufaha siyaasiga ah ee ka jira gudaha Mareykanka oo ay ka socdaan kacdoono looga soo horjeedo duulaanka ka dhanka ah Iiraan waxa aqalka cad lagu eedeynaya inuusan qeexitaan ku filan u hayn sababta rasmiga ah ee dagaalka Iiraan taasoo sii cakiraysa doorka Mareykanka ee gulufkan Donald Trump isagoo ka faa'iideysanaya xiisadaha siyaasiga ah iyo colaadaha gobolka hore uga jiray waxa uu doonayaa inuu abaabulo oo kaalmo military oo xadbeel ah ku taageero kooxaha Kurdiyiinta ah ee ka dhisan waqooyiga Ciraaq iyo xitaa Kurdiyiinta degan waqooyi galbeed dalka Iiraan oo waqti dheer xifaaltan siyaasi ah oo adagi kala dhaxeeyay hoggaanka kacaanka waddankaas Washington abaabulka kooxahan waxay u aragtaa inay noqon karto fursad dahab ah oo lagu wiiqi karo dawladnimada Iiraan Mareykankuna uga baaqsan karo dagaal uu waji gabax iyo guuldarro dhaqaale kala kulmo Trump marka laga yimaado hubaynta kooxaha Kurdida waqooyiga Ciraaq waxa uu sidoo kale doonayaa inuu kaalmeeyo xisbiga mucaaradka ah ee Kurdida Iiraan kan lagu magacaabo Kurdistan Freedom Party PAK ee ilaa 1945 doonaya dhismaha dawladnimo gaar ah xoguhu waxa ay wariyeen in Mareykanku xisbigan u arko mid dabaha u xari kara dib u qaabaynta dawladnimada Iiraan isla markaana sabab u noqon kara dhalashada nidaam cusub iyo isbedel hoggaan oo dalkaas laga sameeyo warbaahinta Israel ayaa si xoogan u buunbuuninaysa xogaha tibaaxaya abaabulka hubaynta iyo wada hadalka Mareykanku kula jiro kooxahan kuwa oo la arko in Mareykanka iyo Israel ku dadaalayaan inay fursad ka dhex tusaan xaaladda Iiraan dabadeedna ku qanciyaan inay iyagu noqdaan ciidamada lugta ah ee kaligood dagaalka ku matali doona huwanta Mareykanka iyo Israel ee haatan u muuqda inaysan guul mustaqbal ka guntayn dagaalka ku kooban duqeymaha cirka iyo badda ah ee ay ilaa sabtidii dhaweyd ka wadaan gudaha Iiraan oo faham buuxa ka haysata khatarta uga imaan karta adeegsiga Mareykanka iyo Israel ee kooxahan ayaa lagu waramayaa inay goor horeba xoojisay ciidamada militariga dalkan ee ku sugan xadadka Ciraaq la wadaagto Iiraan weeraro ka hortaga inay ciidamada Iiraan ku qaadeen saldhigyada Kurdiyiinta ayaa xoguhu qayb sidoo kale wariyeen Iiraan siday horey u sheegtay waxa ay ka dhabaynaysaa u diyaar garowgeeda dagaal muddo dheer ah jihooyin badan oo ay natiijooyinkiisa intooda badan horey uga baaraan degtay sida macluumaadiyadu tabinayaan